بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socdaa casharadeenii taxanaha ahaa ayaan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay ee Al-Quddus. Al-Quddus waxay culimadu ku fasireen inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daahir, inuu ka yahay wax kasta oo naqsi keeni kara ama ceeb keeni kara. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa naziih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad iyo aad rukuucdiisa iyo sujuudiisa u akhrin jiray subuuxun quduusun rabbul malaa'ikati waruux. nabi ciise calayhi salaam waxyaabaha uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awood ku siiyay waxaa ka mid ahayd aatayna ciisa ibn maryam albayinaat wa ayadnaahu biruuxil qudus. culimadu waxay leeyihiin albayinaat waxaa loola jeedaa cadaymaha iyo awoodda uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi ciise siiyey. ilaahayna wuxuu ku ayiday wax kasta oo u baahnaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay in nabi ciise uu ku guto hawshiisii nabinimada iyo hawshiisii rasuulnimada. culimada qaar waxay yiraahdeen kelmadan al-Quddus waa kelmad asalkeeda Siryaani ahayd oo qadiish bay ahaan jirtay oo way ku duceysan jireen. ereyga qadiish bay ku duceysan jireen, kabacdina qadiis bay isu bedeshay. laakiin hadda ereyga asalkiisa iyo meeshu ka yimid muhiimad weyn nooma lahan. qofka muslimka marka waxaa la rabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maadaama uu ceeb ka nasahan yahay oo ceeb oo dhan uu ka nasahan yahay, Ilaahay subxaanahu wa ta'alana uu lagu amaanay, asaguna isku amaanay inuu yahay quduus. qofka muslimkaana waxaa laga rabaa inuu dhaqankaas iyo dabeecaddeedii uu la yimaado oo uu lahaado oo uu ka fogaado wax kasta oo keeni kara inuu daahir ka noqon waayo wax kastoo xun. waxaa la rabaa fitradiisa ama abuurkiisa asalka ah inay u ogolaato inuu noqdo qof wanaagsan oo ceebta ka carara oo ceebta dhibsada oo naftiisa u diida wax kasta oo naqsi iyo xumaan u keeni kara. waxaana la rabaa qofku inuu iimaan ahaan iyo qof ahaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku xiran yahay si aysan asagu u noqonin wax liita. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu mushrikiinta ka hadlayay wuxuu dhahay innamal mushrikuuna najas, oo loola jeedo qofka muslimka ah inuu jir ahaanna daahir u noqdo laga rabo, maskax ahaan iyo moral ahaanna la rabo inuu daahir u noqdo. waxaa kaloo qofka muslimka laga rabaa inuu daahir u noqdo jir ahaanna inuu daahir u noqdo. si ugu noqonaysaa weysaqaadka ka mid ah salaada aad weysaysanayso waxay ku keenaysaa jirkaaga inuu daahir noqdo. waxaa kaloo ka mid ah inaad ruuxda laftigeeda daahir ka dhigto, oo waxyaabaha ruuxda daahiriya waxaa ka mid ah salaada oo qofka ruuxdiisa iyo calooshiisa hoose iyo maskaxdiisa u daahirinaya haddii uu salaada si wanaagsan oo sidii saxda ahayd uu tukado. waxaana ka garanaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri innanii ana Allahu laa ilaaha illaa ana fa'budnii wa aqimi as-salaata lidhikri. marka salaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka muslimka ah ruuxdiisana toosiya, jirkuna weysaqaadka laftigiisa uu ku toosaa. waxaa kaloo qofka muslimka laga rabaa inuu naftiisa daahiriyo oo qof ahaan uu isu daahiriyo. waxaa ka mid ah sidaas u daahirinayso waa inaad zakada la baxdo. zakaduna waa laba nooc, midna waa midda jirka laga bixiyo, xoolaha laga bixiyo, midna waa mid aad qofnimadaada iyo shakhsiyadaada aad ka bixinayso. shakhsiyadaada seeba zaka uga bixinaysaa inaad xumaantana ka fogaato, akhlaaq fiicanna yeelato, jirkaagana aad zakada ka bixiso, adiguna aad u ekaato qof mar walba xaqa lagu leeyahay iska bixinayo oo gudaya. waxaa kaloo la rabaa inaad daahiriso maalkaaga, oo maalkaaga see ku daahirinaysaa xuquuqda Ilaahay ku leeyahay maalkaaga waa inaad guddo, oo laba ay ugu muhiimsan yihiin. midda koowaadna ay tahay zakada lagu leeyahay maalkaaga oo sanad walba la rabo inaad zakaatul maalka iska bixiso. midda labaad oo maalkaaga la rabo inaad ku daahirisana waa sadaqada aad la bixaysid. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi, yacni sadaqadu waxyaabaha ay tarto waxaa ka mid ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caradiisa kaa fogeyso. waxyaabaha ay sadaqada tarto waxaa ka mid ah xataa inay raximka wanaajiso oo ehelkaaga ay wanaajiso, adiga laga yaaba inay cimriga kuu barakayso, inta aan nooshahayna ay wax kuu tarto. marka xoolaha aad haysatana waxaa la rabaa inaad daahiriso. waxaa kaloo la rabaa naftaada si guud inaad uga daahiriso wax kasta oo shubha ah ama shahwo ah, dareen iyo shaki ama caqiido xumo ama akhlaaq xumo, labadabana naftaada inaad ka daahirisaa si joogto ah lagaaga rabaa. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad ku dayato Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu naftiisa ugu ammaanay in naftiisu ay daahir tahay oo wax walba oo xumaana daahir ka tahay. adigana waxaa la rabaa inaad meesha cuskato oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala subax iyo galabba qalbigaaga iyo maskaxdaada
وكجرو فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبح بالعشي والإبكار يسبحون الليل والنهار تسبيح ذات فرض بدن وحيكو كينيسا إن إلهي سبحانه وتعالى خصوصا تهي ومسكح هذا أي كجريسو إرجع مركا القدوس رياض تفسير هذا اللي سميه وحيبها لغو فسر وحكم ذا إني كانت بركة وحكست أي بركوبان إني كانت وحلا ده فضلي أما ديرات عن مر الباكويشو وحكلوا جرا دولك لفتي سميله مقدسة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وإلهي وشرفي وإلهي وحول بوكي إلهي وحكم ذا مكة ماشي حرم كأه إلهي سبحانه وتعالى وحيابا فربضان وحقوقنا للسيي waxyaabo fara badan oo magaalooyinka loo ogol yahay ayada loo diiday si loo ilaaliyo yani muqaddasnimadeeda ama wax kasto xumaana in laga fogeeyo loogu talagalay sida darteed qofka muslimka waxa la rabaa naftiisa inuu dahiro jirkiisa dahiro maskaxdiisana uu dahiro si uu gaaro meel ay naftiisu ceebka saliin u noqon karto in allaalay inta uu ku dadaali karo wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi